islaamku markaa qofka marka hore diinta inuu soo galo ku khasbi maayo laakiin hadduu isagu ikhtiyaarkiisa ku galay looma ogola inuu ka baxo gaalada maanta jooga iyo kuwa calmaaniyiinta iyo caqlaaniyiinta diinta islaamka la dagaalamay dacaayadeeya in qofka diinta islaamka ka baxa la dilayo ay ceeb ka dhigaan laakiin waxaanay ogeyn kutubta kiristaanka waxa ku qoran nusuus tilmaamaysa qofka diintooda ka baxa xukunkiisu inuu yahay dil kutubta yuhuudana saasoo kale way ku qorantay wuxuu islaamku la gaar yahay maaha qolada dadka u layn badan waa qolada markaa la idhaahdo almaasuniya alcaalamiya oo mabda xun oo diin oo dhan iyo dhaqan oo dhan in lala dagaalamo ah oo yuhuudi asalaan ay ka dambayso arrinka saddexaad ee maanici waa saynu sheegnay waa ikhtilaafu diin ikhtilaafu diinkii markaa uu kala qaaday wuxuu kala qaaday murtadkii iyo ahlu millatayn oo qofku hadduu muslim ahaan jiro diintii islaamka uu ka baxo qowl ama ficil ama caqiido ama shaki uu diintii islaamka kaga baxo murtad baa la idhahdaa murtad cidna ma dhaxlo gaal iyo islaamtoona ma dhaxlo isagana cid allaale iyo cid dhaxashaa ma jirto oo isaga waxaan loo dhaxlahayn murtadka maalkiisoo dhami waa mawquuf waa maal uu mar allaale markuu diinta ka baxo ayuu maalkiisii xidhmayaa waxaa la eegayaa inuu diinta ku soo noqdo in kale hadduu diinta ku soo noqdo xoolihiisi isagaa iska leh hadduu diinta ku soo noqon waayana waxa caddaatay maalintuu ridoobay laga bilaabo xoolahaas inay fay yihiin faygu waa xoolo dagaalaan gaalo lagaga qabsaday markaa dee xukunkii fayga ayay yeelanayaan isaguna waxa ma dhaxlayo cidna ma dhaxlayo gaal iyo islaamtoona ma dhaxlayo waayo liannahu laa yuqaru cala alxayaat inuu muslim ahaayo diintii uu ka baxayo haddana uu la yska daayo iska sii noolaadaa dhici mayso mar hadduu diintii ka baxay dowladday waajib ku tahay in la idhaahdo diinta ku soo noqo hadduu idhaa ku soo noqon maayana in la dilo dowladdu ay disho nabiga calayh isalaatu wasalaam yidhi man badela diinahu faqtuluuh qofka diintiisa bedela dila qof muslima oo laga yeelayo diin kale aan u guurayna ma jiro dadkeenna waxay iska idhaahdaan hebel kiristaan buu noqday wax kiristaan la idhaha ma jiro waa murtad mar hadduu muslim ahaan jiray magaca uu leeyahay waa murtad axkaamtuu leeyahay waa axkaam almurtadiin ila kiristaanku axkaam gooniya bay leeyihin iyagu dumarkoodaa la guursan karaa waxay gowracaan baa la cuni karaa laakiin ka muslim ahaan jiray qun yar iska yidhi waxaa noqday kiristaan wuxuu gowraca miyaa la cunaya maya miyaa gabadha murtadadaa la guursan karaa gabadha muslimada ahaan jirtay diinta ka baxda nin muslimi guursan kara waa maya marka halka khalad weyn baa ka jira oo qof muslim ahaan jiray ku odhanayaan yuhuudi buu noqday la wuxuu noqday kiristaan kuwaas axkaam gooniya bay leeyihin islaamku markaa qofka marka hore diinta inuu soo galo ku khasbi maayo oo ilaahay baa subxana wa tacaala yidhi laa ikraha fi ddiin qad tabayana arushdu min alghay diinta gelisteeda la ysku khasbi maayo dee hanuunkii iyo lumitaanki way kala caddaadeen qofku isagoo ha kala doorto isagaa wuxuu ka helo leh aayaddu waxay ku soo degtay nimankii ansaarta ahay reer madiina intaanu nebigu calayhi salaatu wasalaam u tegin caruurtooda waxay u geyn jireen yuhuudda oo dee diin ay ka urinayeen qaar badanoo carruurtoodii ka mida baa saa ku yuhuudiyoobay markii yuhuudda laga saaray magaalada madiine laga saarayey ayay caruurtoodii yuhuudiyoobay dee qoladii isku diinta ahay in raacaan ay dooneen waxay dooneen in khasab kaga reebaanoo khasab ay ku islaamiyaan ilaahay baa taa ka diido hi laa ikraha fi ddiin waayo diintu waa qanaaca weeye qofku waa inuu ku qanco waa mabda la aaminayo waa iimaan khasab kuma imanayso marka islaamku qofka marka hore ku khasbi maayo inuu diinta islaamka soo galo laakiin hadduu isagu ikhtiyaarkiisa ku galay looma ogola inuu ka baxo hadduu ka baxana waa fursad baa la siin hor kusoo noqo baa laleeyahay hadduu kusoo noqon waa la dilaya maxaa labada loo kala duway waxaa loo kala duway diinta inuu soo galaa qanaaco iyo iimaan iyo waxaan inuu mabda ka yahay bay dee u baahan tahay haddii la khasbo afka ka idhaahdo muslim baane
وقلبي أنا كإسلامي مسلم وأنت كنا قني مسلم كنا قن معي markanuu muslim noqday diinta uu soo galay dib uga baxay waxa loo dilaya diintii buu ceebeynaya waxay ka dhigantay inuu dadka kale gaalada ku leeyahay war meeshan aniga ceelkan ana ku dhaadhaco guntiisa tagay oo waa lagu hungoobayaa ku soo lugoyna saasay ka dhigantay gaalada maanta jooga iyo kuwa calmaaniyiinta iyo aqlaaniyiinta diinta islaamka la dagaalamay dacaayadeeya in qofka diinta islaamka baxa la dilayo ay ceeb ka dhigaan laakiin waxaanay ogeyn kutubta kiristaanka waxa ku qoran nusuus tilmaamaysa qofka diintooda ka baxa xukunkiisu inuu yahay dil kutubta yuhuudana saasoo kale way ku qorantay wuxuu islaamku la gaar yahay ma qolada dadka u layn badan waa qolada marka la yiraahdo الماسونية العالمية ومبدأ حن أو دين أو دن يدقن أو دن إلى الدجالماء أو يهودا صلاة كذا بس قفكم مر هدو مبدأ أو ذا قلوا كبح الدل باي أي ويال كما قال يكوا مبادئ ده يحس دولتهم قفك وحي نظام كدولة ده ويالي إنه الدمية اسكت ضيع حيرة خيانة قرن maraykanka khiyaano qaran wax ku dilay oo ingiriiska ku dilay marka mabaadidii yaryarada iyagu ay qorteen qofka u arkaan inuu burburinayo waa khiyaano qaran baa oranayaan way dilayaan qofkii diintii ilaahay uu soo dajiyay saxda ahayd intuu ikhtiyaarkiisa ku galay haddana iskaga baxay oo ka bixitaankaas abada ceebayn oo diintii yacay in la dilo waxay ka dhigayaan bahalnimo ayay ka dhigayaan iyo naxariis dariyo waxyaaba noocaas ay ka dhigayaan marka waxay khaldi karaan cidaan arrimahooda aan war u hayn bay khaldi karaan oo daamatu naas kamida ama wadaada waxyaabahaas aan war u hayn sideedaba qofka muslimka mar hadii xukunku uu ku sugnaado daliil min alquran aw min as-sunnah si dhameystir waa inaad rumayso oo qanaaco dhameystir inuu sax yahay si 100% waa inaad ku qanacdo waligii baa la dacaayaday waxa laga sheego waxa la yiraahdo shubahada la soo arooriyo waxa soo dhawaynaan ku dhaqaajin waayo marka murtad xaalkiisu waa ka